sheekadan waxaa la yidhaahdaa qof waliba wuxuu qaataa wixii ka maqan. xilligii halgamaagii reer Hindiya ee Mahatma Gandhi uu dhiganayay College of London oo ku yaala magaalada London ee cariga Ingiriiska oo dabcan sharciga ka baranayay sida aad la socotaan ama laga yaabo in badan oo idin kamid inaad la socotaan. waqtigaasi waxay aad u nacbaa Gandhi macallin wax ka dhigi jiray jaamacadaasi College of London oo lagu magacaabi jiray Professor Wilson. Professor Wilson waxa uu ku nacbaa Gandhi markasta dood ayuu kala hor iman jiray, indhaha muu laabi jirin, wajigana muu foorarin jirin. waqtigaasina waxay ahayd waqti cunsuriyadu ay aad u badnayd oo dadka Ingiriiskuna ay in badan ama dalal badan oo adduunka ku yaala gumaysanayeen, isla markaasina ay dadka kale ee adduunka jooga ay aad u yeesan jireen. wuxuu u qaadan waayay Professor Wilson ninkan ka soo jeeday Hindiya ee dalkiisa uu gumaysto dalkiisu ee haddana dooda iyo hadallada cad kala hor imanaya. Wilson mar walba dood ayuu kala hor iman jiray Gandhi. markasta oo Wilson soo dhigo fikrad waxa uu keeni jiray dood kale oo kullidi ah. maalmaha kamid ah ayaa Professor Wilson waxa uu fadhiyay ama uu ku qadeynay goobta hoolka qadada. waxa miiskiisii soo fadhiistay Gandhi oo isaguna cuntadiisa soo qaatay. dabadeedna Professor Wilson ayaa ku yiri Gandhi soo ma ogid doofaarka iyo shimbirtu meel ma wada fadhiistaan. Gandhi ayaa ku yiri Professor hawrwarin waan ka duulaya, isagoo daba socda shimbirtii iyo doofaarka oo uu dabcan leeyahay Gandhi anigu shimbirtii baan ahay. mar kale ama maalin kale ayaa isagoo xiisada ku jira Professor Wilson waxa uu sameeyay ama uu ardayda dhex dhigay dood ah haddii lagu siiyo jawaan lacag ah haddii lagu kala dooransiiyo jawaan lacag ah iyo weliba xigmad keeba qaadan lahayd. Gandhi ayaa farta taagay oo dabcan ardayda ka mid ahaa. waxa uu yiri anigu waxaan qaadan lahaa lacagta. Professor Wilson maad iyo qosol ayuu ka dhigtay hadalkii isagoo yiri anigu waxaan qaadan lahaa xigmadda. Gandhi ayaa farta taagay oo ku sababeeyay doorashadiisa hadal xigmad ahaa, isla markaasina caan noqday oo ahaa qof waliba wixii ka maqan ayuu qaataa. aniga lacag ayaa iga maqan oo lacagta ayaan qaadan lahaa, adigana xigmadda ayaa ka maqan, sidaas daraadeed ayaad xigmadda u dooratay. cadho weyn ayaa ku dhacday ninkii Professor Wilson. dad badanna way ka maadeysteen. hadalkiina waxa uu noqday mid dunida oo dhan caan ka noqday oo marar badan la soo qaato. sheeko kale haddii aynu ku darno oo ku saabsan islaah Gandhi iyo wacdarihii iyo waayihii iyo mahadhooyinkii laga reebay waqtigii uu halganka ku jiray. maalmaha kamid ah ayaa waxa la sheegaa in Gandhi oo aad u ordaya oo isla markaasina eriyanaya tareen kamid ah tareenada Hindiya, maadaama oo dadka Hindiya ay aad u badan yihiin. tareenadu inta badan waa kuwa saxmada oo buuxa oo aan lagu helin si dhayar. inta badan dadku way eriyadaan, qasab ayaanay ku fuulaan qof iyo awoodii ama qof iyo orodkii. Gandhi oo si weyn u cararaya ayaa markii uu tareenka qabsanayay ama uu haabanayay ayaa waxa ka dhacday kab. sidii degdega ayaa waxa uu qaatay go'aan cajiib ah ama dad badan fajac galiyay. waxa uu mar labaad halkii kabtii hore kaga luntay uu ku tuuray kabtii uu soo hadhay. markii uu fuulay tareenkii ayaa Gandhi laga wareystay dhacdadan ujeedada uu ka leeyahay iyo waliba waxa uu sidaas u sameeyay. wuxuu yiri waxaan ka warwarayaa Hindiga baahan ama faqiirka ah ee heli doona kab qura. markaas waxaan doonayaa in Hindigaasi baahan maadaama ay kabta quri waxba u tarayn in uu helo laba kabood, maadaama aniga kabta ii soo hadhay aniga ba aanay xataa wixii tarayn. taas oo lagu tilmaamo ama ay dadka Hindiyaankiihi keentay inay qadarin aad u weyn ay siiyaan maadaama oo uu aad u lex jecel badan ugu hayay dadkiisa. taasina ay laga dhaxli karay bay yiraahdaan dadku sida uu dalkiisa iyo dadkiisa Hindiya uu jeclaa halganka weyn oo ku kala. labadan qiso ee ku saabsan isla Gandhi waxay ina tusayaan xigmaddu sida ay muhiim u tahay ama qisooyinka ku jira oo tahorana ay tahay qof waliba wixii ka maqan ayuu qaataa oo dabcan wixii ka dhiman waa tahay inaad waajahdo ama aad doorato. cilmi, aqoon ama xigmad waxay doontaa ha noqoto muhiim maaha siday muhiim u tahay ee ay dadku ugu baahan yihiin, laakiin waxa muhiim ah siday adiga ku anfacayso ama waxa adiga ka maqan inaad waqti geliso. qisada kalena waxay tusaysaa waxa aan adiga waxba ku tarin ee qofka kale wax u taraya inay muhiim yihiin. mararka qaar wax yar oo aan adiga waxba ku tarin ayaad ku farxad gelin kartaa ama farxad weyn ugu abuuri kartaa qof kale.
wuxuu ka fikirayay Gandhi xilligaasi Hindiga baahan ee kabta qori heli doona marka uu laba kabood helo inay mustaqbalkiisa ay afici doonto waqti dheerna uu ku rayn doono maxaa adiga qisadaasi aad kala soo dhex baxday ama aad ka faa'iiday adiga dhinacaaga